So marka waxaan sameyn doonaa portfolio website waxaan sameynaynaa marka labo page qayb marka home page ama page ugu horeeya isoo kale waxaan sameynaynaa qayb services hadduu aan lidmo. So waxaan dhahna marka add page so labo page aan ku darsan doonaa hadduu aan lidmo. Qaybta marka page ka waxaan dhahna services. So waa publish gareynayna si marka page loo sameeyo. Publish ayaa dhahna. So almost page ka waa live haddaa fiirisid. waxaan kaloo fiirinaynaa page kale oo markaasi ah page home page ayaan sameynaynaa. Okay, waxaan dhihi doonaa marka publish. So marka waxaan ku bilaabaynaa home page ka. So hadda home page kan weeyaan waxaan rabnaa inaan kaas ku bedelno. Si fudud waxaa imaanaysaa dashboardkaada. qaybta waxaa imaanaysaa settingka. waxaa imaanaysaa qaybta readingka. kadib qaybtan home page waxaa weeyaan almost waxaa dooran qaybta your latest posts kadib waxaa leenahay static page. home page waxaa ka dhigtaa home posting dabcan hadda post page ma rabno sidiisa sii deynina. waxaa dhihi doonaa marka save changes. So saa ujeed marka home page waa kana waxaa laga dhigay page haddeerta aan sameyno aan ku qornay homeka. ma rabno marka inuu home iyo waxyaalahaas ku qornaado waxaan rabnaa inaan page caadi aan sameyno. almost waa ka tirtiraysaa. marka hadda qoraalka homeka waa ka tirtiraysaa ujeedaan everywhere. marka hadda waxaan dhihi doonaa edit with elementor marka waxaan sameynaynaa page ugu horeeya. intaanan sameyno marka waxaan isku arkaynaa basicska elementorka uu leeyahay. marka cashirka labaad waxaan isku arkaynaa basic widgetska iyo layoutka isku arkaynaa sida marka loo isticmaalo columnska iyo sidoo kale widgetska iyo sections sida loo isticmaalo sida headingka text editorka imageka buttonka loo isticmaalo marginka iyo padding iyo sidoo kale mobile responsiveness basicskiisa ayaan isla arkaynaa. So marka qaybtaan ay imaanaysaa qaybta marka imaadaysaa ujeedaan waxaan arkaynaa qaybta waxaa samaysan kartaa add ayaa dhigi kartaa kadib waxaa samaysan kartaa layoutka aad doonaysid ayaa samaysan kartaa. waxaa samaysan kartaa flat iyo sidoo kale grid ayaa samaysan kartaa. tusaale flat haddaad ku dhufto waxaa samayn karaa elementyada meesha uu soconayo ama qaabku noqonayo inaad samaysto. tusaale haddaa rabo 3 shay haddaa rabo shay noocan kale layoutka aad doonaysid ama nidaamka aad doonaysid in shay aad u noqdo ayaa ka dhiganaysaa. haddaa rabtid 2 shay haddaa rabtid 1 shay haddaa rabtid yacni 3 shay 4 shay yacni waxyaalo badan haddaa rabtid saasa u samaysanaysaa. so hadda qaybta ugu horeysa 2 shay camal aan ka rabnaa. sidoo kale meesha haddaa klik ku siino waxaa la samayn doonaa labadan shay ayaa la samayn doonaa ama labadan dhinac ayaa la samayn doonaa. so dhinaca waxaa keeni kartaa elements dhinaca kale waxaa keeni kartaa elements kale ayaa keeni kartaa. so elements aa usoo darto waxaa dhihi kartaa add ayaa ku dhufi kartaa kadibna element yaaratid ayaa halkan ka raadi kartaa. tusaale kale heading aa rabaa waxaa dhihi karaa heading kadib headingkaa soo daraa jareynaa halkan ayaa kusoo darab jareynaa. so saa ujeeda qoraalka ayaa meeshaan keenay. marka qoraalka si fudud aa u dhigi jareyn kartaa dabcan double click unbaa ku siinaysaa kadib waa dooranaysaa waxaa dhehaysaa marka hirkaab academy oo kale aad ku qori kartaa. marka qoraalka haddaa rabtid inaad maamusho waxaa ka maamulaysaa qaybtan ayaa ka maamulaysaa. mar walba wax kuu dooranyahay meesha wax isku bedelaysaa meesha lagu edit gareyn lahaa waxa markaas kuu dooran. saa ujeedid content ama qoraalka ayaa ka edit gareyn kartaa stylekiisa ayaa ka edit gareyn kartaa iyo sidoo kale waxyaala kale advanced hadday noqon lahayd marginka iyo sidoo kale paddingka. so waxaa dhahnaa marka contentian meeshaan ka edit gareyn karaa sidoo kale waxaa dhihi karaa link inaan u sameeyo linkigaas aa meeshaan kusoo baas jiray. si fududna meeshaan kasii edit gareyn karaa headingka waxaa dhihi karaa h5 span iyo waxyaalo kale ayaa markaas sii karaa sida paragraph aa ka dhigi karaa h1 aa ka dhigi karaa h2 aa ka dhigi karaa. marka waxaa rabo ayaa markaas dooran karaa. so qaybtan kale waa styleka caadiga ahaa hadday noqon lahayd colorka meeshaana laga doortaa dabcan color ayaa ka dooran kartaa colorka aad doonaysid ayaa ka dooranaysaa. qaybtan kale waxaa weeyaan markii hover ama mouse lagu aadiyo siduu noqon lahaa. so qaybtan kale waa alignmentiisa ujeedaan alignment center ayaa dhigi kartaa ama waxaa dhigi kartaa lefty waxaarta ayaa samayn kartaa. sidoo kale alignmentian waxaa markaas ku xiri kartaa inaad ka dhigto shaashadaha kala duwan siduu noqon lahaa. tusaale kale shaashada koowaad ee desktop waxaa dhigi kartaa lefty shaashada labaad markii la gaaro oo tabletna waxaa dhigi kartaa center ayaa dhigi kartaa. saa ujeed shaashada koowaad hadii markaa la geeyo wuxuu noqonayaa qoraalka lefty ayuu noqon doonaa. shaashada labaad hadii la geeyo tabletkana wuxuu noqon doonaa center ayuu noqon doonaa. marka shaashadahana halkaana ka dooran kartaa si fudud style walba ama wax walba siinaysid shaashadaas ayaa markaas dooran kartaa kadibna shaashadaha kala duwan ayaa markaas si kala duwan loo kala siin doonaa. qaybta advanced wax kale maahan waxaa ugu muhiimsan waxaa kamid ah marginkan iyo paddingkan. so marginka waa spaceka banaanka tusaale kale hadda h waxaa noo qoran ciwaankaana noo qoran so spacekiisa banaanka haddii aan ku daro waxaa arkaynaa aadho tusaale kale 10 waxaa weeye spaceka ama wax ku hareeraysan ayaa markaa space la siin doonaa. so haddii aan dhaho tusaale 30 spaceka dhinacyada ayaa markaa space laga siin doonaa. paddingkan waxaa waaye gudihiisa waa tusaalaha hariiqan ku hareeraysan iyo qoraalka inta udhexaysa markaa ayaa waxaa la siin doonaa space. ujeeda hadda hariiqa iyo qoraalka iskuma dhedhna space fiican ayaa la siiyey. so haddii aan 20 ka dhido
سأوجد حريقي قرالك سبيس في أنا لسيسو مارتين جو سبيس بنانكا هالك بارين كيلو ياي سبيس جودها بيسك اللي مركي انت ساو ميسن انت كلا طبعا واسلار كنا ان هذا حرو انا اسلا فيرنو وجد سكتلا اما حالات كلا مركاسي اسو قادي جرتين سو اد element يا مرو كورفنسا هدي قيبت ستالك اجوديت سو wax walba soo dooranaysa soo image daro kana soo darajareen doona soo qaybta hoos aad jira qaybta saraan dhidi jira soo jeedi soo marka image sana u soo dhidaysa kadib image aragtid ayaa soo gelinaysa sida loo soo geliyo fuudahay ka marka saa u doorato qaybtan un baa juice ayaa dheesa marka image aragtid ayaa marka soo salad gareynaysa waxa markaas aadaysa meesha images oo ku jiro marka images ayaa soo qaadanaysa so basically meeshan hoosaad click ku siinaysaa ama select ayaa dheesa image saas u dooranaysaa automatically marka images ayaa la soo gelin doona hadda image wuxuu ahaa image cadaan ah ujeed loojada marka waxay ahayd cadaan so almost waxa weeyaan oo soo muuqan doona si uu soo muuqdo background iyo waxyaalo badan sii jirta qaybta hadii ay imaano advanced waxa dooranayna qaybta background waxaan siinayna marka background ayaa siinayna sala waxaan siinayna color caadi ah dabcan soo jeed color si background so hadda badinki margin hadda waa fahmi kartaan so hadda marka waxaa si color caadi ah background ayaa si marka background waxyaalahaasna si fiican isku arkin hadda waa lidmo qaybtan kale waxa sii jira soo kale badin maadaama background background iyo loojada space daarawina u dhaxaysiyo badin ayaa isticmaalaya okay marka haddeertan waa basically waa waxyaalaha basic ah so waxa rabta markii inaad deleted waxa dooranaysaa kadib waxa dhigtaa right click kadib delete ayaa ku dhufanaysaa ama calaamada delete ka ayaa dooran kartaa so waxyaalaha kale waxaa kamid ah waxyaalaha kale uu misax kamid ah text editor-kan kaasoo marka loo talagalay qoraalka soo qoraal aad ku qoran kartaa qoraal dhameystiran aad ku qoran kartaa soo jeed yani text editor-ka caadiga ah sida word oo kale weeyaan waxaad sharaxaad aad u badan u baahan ma taale qoraalkan kala ku qoran hadaad meel qaar ina bold ka dhigto waa dooranaysaa bold aad ka dhigaysaa soo jeed bold uu noqonaya meel qaar hadaad inaad doorato aad ka dhigto markaasi italic marka italic aad ka dhigaysaa saan kala u dooranaysaa kadib waxaad dhigaysaa italic so meel qaar hadaad inaad hoos ka xariiqdo aad dooranaysaa kadib waxaad dhigaysaa hoos ka xariiq hadaad inaad list aad sameysana list aad sameynaysaa wordpress which framer sala kale markii list ayaa dooranaysaa kadib list ayaa u sameynaysaa ka marka waa text editor wuxuu shaqeeyaa sida word kale soo jeed marka aad u fududahay waxa sameynaysaa marka ku xiran tahay tusaale qaybtan ka sii dooran kartaa soo jeed tusaale ciwaan aad dooran kartaa kadib waxaad dhigi kartaa heading ciwaanka meesha ku qoran kartaa marka almost soo jeeda yani complete thing ama wax dhameystiran aad ku sameyn kartaa waxaanu ku suurgelinayaa inaad qoraalo badan aad ku sameysan karto qaybta marka waa qaybta visualka ama qaybta caadiga loo arki karo sida word kale u shaqeynaysa hadaad inaad sawir ku soo dartana hadda heading marka aad sawir aad ku soo dartana add media leedahay soo sawirka aad soo dooranaysaa almost saas uu soo darsanaysaa soo qoraalada dhan waa ku edit gareyn kartaa soo kale sawirna waa ku soo darsan kartaa saa u jeedaan so qaybtan soo kale hadaad meel qaar inaad link aad ka dhigto su'aal kale link hadaad inaad ka dhigo link aad ka dhigi doonaa soo linkiga meesha la aadi doono ayaa markaa sameyn doonaa kaliya so waxaa dhigi doonaa su'aal kale hirkaab ayaa la aadi doonaa so sida fudud ayaa u sameynaysaa so qaybtan hadda link ayay noqonaysaa haddii hadhow marka qofka click uu ku siiyo link caadi ayay noqonaysaa sidoo kale waxaa ka marnayn qaybtan waa qaybta visualka marka qaybta visualka hadda joogta waxaa markaa aadi kartaa qaybta code ayaa aadi kartaa marka waxaa arkaysaa code caadi ah oo html oo kale oo sameysan ayaa arkaysaa soo hadhow html haddii aad isku fiican tihiin aad ayaa markaasi qaybtan ku anficaysaa qaybta codeka weeyaan so waxyaalo badan ayaa markaasi aad ku sameyn kartaa saa ujeedid wax walbo elements hadda soo sameynay oo html ahaana ayaa markaa halkaa lagu sameeyay so listiisa ujeedid waa unordered list qaybtan waa h3 qaybtan kale waa image ama sawir saa ujeedaan image ayaa la soo qaatay marka image url-kiisa xitaa uu soo qaatay si toosa marka waxyaalo badan ayaa meesha ka bedeli kartaa marka waxaan filayaa qaybta text editor-kan inaad si fiican u fahanteen so waxyaalaha kale waa lamid si fudud mar walba waxa la soo qaadan doonaa element ama widget ayaa la soo qaadan doonaa oo la soo daraajareyn doonaa meesha la doonaya lagu soo daraajareynaa markii lagu soo daraajareeyo wax walba marka si fudud markii laga bedelaa waa la dooranayaa so qaybta marka waxa laga bedelaa qaybaha basics sida linkiga meesha la geelaha wuxuu noqon lahaa iyo wix lamid ah qaybtan styleka ayaa laga bedelaya hadday noqon lahayd background iyo wix lamid ah qaybta waxaa laga bedeli doonaa waxyaalaha advancedka marginka iyo paddingka ayaa laga bedeli doonaa marka si basically si aan u fahanno si qoto dheer waxaan sameynaynaa project kaasoo noqon doona insha allah portfolio website wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu